magaalada Frankfurt waa magaalo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka waxaana kamid tahay magaalooyinka hogaamiye dhaqaalaha dalka Jarmalka waa magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 700,000 oo qof waxaana u soo shaqo taga maalin kasta oo magaaladani yimaada ku dhawaad 2 milyan oo qof kuwaas oo ka shaqeeya shirkadaha iyo goobaha ganacsiga iyo dhammaan shaqooyinka kala duwan ee magaaladani ka socda magaaladan marka aad maalinnimadii dhex marayso waxa dareemaysaa saxmad aad u weyn oo magaalada ay ku yaalo airportka ugu weyn ee dalka Jarmalka iyo Yurub marka laga hadlayo marka laga yimaado airportka Istanbul airportka labaad ee Yurub ugu weyn waa kan Jarmalka oo ka kooban 3 terminal waxay leedahay waa magaalada lagu sameeyo lacagta Euroda ama lacagtan la dhaho Euroda ee Euro isticmaasho wadamada European ka isticmaalaan waa magaalada uu ku yaalo bangiga dhaqaalaha Yurub sidoo kale waxa ku yaala bangiyo badan oo caalami ah waxa ku yaala shirkadaha ugu caansan dunida waana magaalada qiimaha ugu fadhida dalka Jarmalka halkan waxa ka muuqda taaraha dhaadheer ee Frankfurt caanka ku tahay kuwaasi oo ay u intooda badan soo shaqo tagaan dadyow ka kala yimaada magaalada gudaheeda iyo hareeraha magaalada iyo gobolada qaar kamid ah waxaanay maalin kasta martigelisaa 2 milyan oo qof oo shaqaale ah oo habeenkii noo caraaba guryahooda oo qaarkood masaafo dheer jiraan qaarkoodna magaalada duleedkeeda ay ka soo shaqo tagaan muuqaalkeenan waxaanu ku eegaynaa caawa night view-ga magaalada iyo magaalada muxuu ahaayay sida ay habeenkii tahay Frankfurt marka laga hadlayo wada socod wanaagsan soo socda Für mich ist Frankfurt vor allem eine Stadt, die irgendwie ja, Kulturen zusammenbringt, die tatsächlich irgendwie Multikulti wirklich lebt. Frankfurt ist vor allem eine Stadt, die natürlich auch irgendwie gewisse, ich sag mal, Barrieren hat auf den ersten Blick, aber die Barrieren wirklich zusammenbringt in gewissen... Ja, Frankfurt ist für mich eine Stadt, die wirklich mehr gibt, als man am Anfang erkennt. Am Anfang denkt man, Frankfurt ist so eine bisschen asoziale Stadt, aber Frankfurt ist tatsächlich eine Stadt, die wirklich sehr vielseitig ist, die sehr individuell ist, die wirklich viel gibt, mehr als man erhofft oder sich erwartet. Man kann wirklich viele Sachen machen in Frankfurt, man hat die Möglichkeiten, die man, glaube ich, in vielen anderen Städten nicht hat. Und das schätze ich wirklich an Frankfurt sehr, dass man wirklich die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, persönlich viele Leute kennenzulernen, die man sonst in anderen Städten nicht kennenlernen würde. Und es macht einfach Spaß, in Frankfurt zu sein und in Frankfurt viele verschiedene Leute kennenzulernen und viele verschiedene Kulturen auch kennenzulernen und das lieben und schätzen zu lernen.
odayaal hadda waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Frankfurt waa centerka magaalada calaamadan iga dambaysa waa calaamada yuurada calaamadan yuurada waxay ka turjumaysaa in lacagta yuurooga ah lacagaha adduunyada ugu qaalisan lagu sameeyo magaalada Frankfurt guud ahaan dalka Jarmalka magaalada Frankfurtna ay nasiib u yeelatay bangiga lagu kaydiyo lacagta waa kan iga dambeeya dabaqan iga dambeeya ka lagu sameeyaana wuxuu ku yaalaa dhinaca kale ee magaalada baad waxaan sii dhex galaynaa magaaladiina eegaynaa iyo meelaha quruxda badan leh waxaan ku suganahay Altstadtka magaalada Frankfurt dalkan waa halka ay magaaladu ka bilaabantay waana guryaha ugu qadiimsan ee magaalada waa meel dadka dalxiisayaashu inta badan yimaadaan waxaana habeenkii ay u camiran tahay si ka duwan sida magaalada kale u camiran tahay waxa ku yaala goobo lagu caweeyo goobaha madadaalada iyo dhul badan oo aad ma garanaysaa maxay dadku u jecel yihiin baad weyn isla eegina soo socda
hadda waxaan ku suganahay waxaanu ka nimid qaybtii alti shtaadka ama magaaladii qadiimka ahayd ee Frankfurt ka soo bilaabatay moolkan waa mool caan ah oo magaalada Frankfurt aad looga wada yaqaano waxa la yiraahdaa Maysail waa mool ay dhistay gabadh Ciraaqiyad ah oo injineerada oo dunida oo dhan caan ka ah moolal badan iyo dhismayaasha ugu caansan dunidana dhistay oo bari dhaweeytay 2016 dhimatay moolkani sidoo kale soo daaqo ka kooban yahay markaad korayso jaranjarada dheer baad raacaysaa markaad ka soo degaysana 100 jaranjaro yar si aad dukaamada oo dhan soo wada aragto bal markaan hadda jaranjaradan ka baxno dukaamada oo dhan baynu ku soo daadagaynaa deedna dibadda uga baxaynaa waa habeen xada waa hadda waa la xirayaa meherado badan way xiran yihiin meherado badan ay gal lahayn way xiran yihiin laakiin way soo wada eegaynaa si qofka Frankfurt yimaada ay rabo inuu halkan ka adeegtaa oo arko dukaamada halkan ku yaala iyo moolkan quruxdiisa